الحرية قادم، نبي يتوقف نار قوية قادم، جيل العزة والحرية قادم، نبي يتوقف نار قوية قادم، جيل جبار مغوار، جيل يتحدى الأخطار، جيل جبار مغوار، جيل يتحدى الأخطار، قادم 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 قادم، جيل إسلامي المبدأ والأفكار، شهم لا يرضى بالذل أو بالعار، جيل إسلامي المبدأ والأفكار، سهم لا يرضى بالذل أو بالعار، جيل يهتف بالقرآن، جيل يقصف بالنيران، جيل يهتف بالقرآن، جيل يقصف بالنيران، قادم 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 قادم، جيل العزة والحرية قادم، نبي يتوقف نار قوية قادم، جيل العزة والحرية قادم، نبي يتوقف نار قوية قادم. شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu gudagalnay maalintii labaad ee muctamarkii saddexaad uuna isku soo dubarida soona qabanqaabiyo masjid التوفيق الإسلامي. maanta waa maalintii 15aad bishii labaad 1426 taariikhda islaamiga ee hijriga ah, kuna aadan 25kii bishii saddexaad 2005 sanadkan miilaadiga ah. waxaynu bilaabanaynaa muxaadaradii koowaad ee maanta, noqonaysana tirsiga ama cadadka muxaadaraadka ee baxay muxaadaradii shanaad ee muctamarka. muxaadaradaas waxay xambaarsan tahay ama ay sidataa ciwaanka ahmiyadda salaadu ku leedahay islaamka. muxaadarada waxaa inoo soo jeedin doonaa sheekh cali maxamed صالح، فليتفضل مشكورا شيخ علي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وأقيموا الصلاة. قفك مؤمنك شيء كليا ee noloshiisa muhiimka ku ah ee uu raadinayo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu dhawaanayo darajaadkiisa ka adduunyada kan aakhiradana kor u dhigi kara, waa xiriirka isaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhaxeeya. xiriirka oo mathali kara keliya salaada. saadarteed bay salaadu iyadoo ahamiyadda leh ay haddana waxay mutaysatay in laga hadlo ahamiyadda gaarka iyadoo ay leedahay. laba ahamiyad baa meeshii marka ku jirta. midna waa ahamiyadda gaarka ay salaadu ay leedahay, midna waa ahamiyadda kale ee meeshii ka iman karta marka loo baxo xiriirka u dhaxeeya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoonkiisa. waxaa caado noqotay markastoo salaada laga hadlo in dadku ay ka hadlaan axkaamta salaada markaa la xiriirta. maxaa salaadii ku banaan, maxaanan ku banaanayn, maxaa salaada dadka ka jebiya, maxaanan ka jebin, salaadu inay waajib tahay maxaa caddaynaya inaan ahayn, maxaa caddeeya.
badanaa waa qodobada badanaa ay isdul taagaan ama qof kasta ay isku dayay inuu ka hadlo salaadii uu markaa u dul taago waxayna ila tahay qodobada sidaas oo kale ah inkastoo ahamiyadooda ay leeyihiin faa'iidadooda ay xambaarsan yihiin haddana waxaad moodaa inay munaasab ay tahay inaanu milicsanno axkaamta ka sokow inaanu milicsanno xigmadda salaadu marka ay xambaarsan tahay maxaa aniga laygaga baahan yahay inaan u tukado maxaa keenay in ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu waajibay salaadii sababta keentay oo mar walba leeyahay 5 waqti tukan maxay tahay waa arrimahan u bixi doona biidin ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin inta aynaan guda gelin axkaamtu salaada ay xambaarsan tahay ayaa waxaa habboon inaanu dhowr bosteejo isla marno inagoo ku bilaabanayna maxadada ugu horraysa ay tilmaamaysa qofka mu'minka ah hawiyadiisa iyo aqoonsiga qofka mu'minka lagu aqoonsada waxa uu muujin kara salaada inta aad tukatid keliyaan kuu ictiraafsanahay inaad muslim tahay salaada markaan kaa waayana muslim inaadan ahayn baan ictiraafsanahay waxaana caddayn doonaa intaasoo kun oo daliila oo biidni illaahi subxaanahu wa tacaala kuwa aanu ka daba tegi doonno amaba haddii ilaahay qadartiisu ay nawaafajido waqtigana uu nawaafajiyo biidni illaahi subxaanahu wa tacaala qaarkood markaanu taaban doonno waxaad og tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inuu ku yidhi maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin su'aasha la weydiin doona dadka saqara ku shalwan doona oo geli doona ayaa waxay tahay war maxaa idin baday maxaa keenay inaad maanta dhammaantiid aad gashaan naar lagu magacaabo saqara jawaabta ay bixin doonaan waxay noqon doontaa lam naku min almusalliin adduunyada intaanu joognay ma aynan tukan jirin ayadda meesha waxaad kala baxaysaa macno ah bimacnaa waxaanu ahayn dad aanan lahayn aqoonsigii dad waxaanu ahayn aanan sidan aqoonsigii laynagu aqoonsan lahaa dad waxaanan aan ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala aanan aqoonsanin aanan garowsanin saa darteed maanta waxaanu mutaysannay in jahannamo meeshan ama naarta magaceedu yahay saqara inaanu galno jawaabtaa memarka bixinayaan ayaddaas waxay daliil u tahay in qofka mu'minka amaba qofka isku sheegay inuu mu'min uu yahay isla markaana aanan tukan qofka isaga aqoonsigii muujin lahaa inuu muslim yahay meesha inaan oolin waxaa kaloo aanu ku baraarugi karna ahmiyaddeeda waxaa muujinaya qur-aanka markaad aqrisid kelimata salaa keliya markaad dabaraacdid oo istiraahid baltiri waxaa ka soo baxaya iyadoo dhan marka la isku geeyo 67 jeer buu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo celceliyay wa aqiimu salaa salaa oo alif iyo laam iyo saad iyo laam iyo alif iyo ta marbuuta ay wadato inta is wadata 67 jeer bay qur-aanka kusoo laalaabatay iyadoo markay magac tahay iyadoo ficila oo fal tilmaamayso sallu iyo wixii la mid ah salli iyadoo ahna waxay qur-aanka ku soo aroortay ilaa 16 jeer marka la isku geeyo waxay noqonayaan 83 jeer bay kelmaddaas ay soo noqnoqotay maxaa marka koosgareeya amaba keenay in kelmaddaas sidaa loo soo celceliyo fiixiin afcaashii kale amaba falalkii kale ama mabaadi'dii kale qofka muslimka laga doonayo diinkii markaa ku salaysan aan la soo celcelin واي iyadoo loo soo celcelinaya maxaa keenay arinta keenta waan ogaan doonaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala salaadu inay tahay waxa muujinaya qofka aqoonsigiisa waxaa ka mida aayadda ilaahay uu yidhi innamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyawmi alaakhir masaajida ilaahay waxaa camira waxaa buuxiya waxaa iimaankooda ku camira duulka iyaga ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey maalinta aakharana rumeeyey qofka markuu masaajidka lugaha uu soo dhigayo iyo marka uu soo gelayo arrintaa waa arrin muujinaysa qofka kanu inuu imaan xambaarsan yahay waa arrin muujinaysa qofka kanu inuu salaad u yimid taana waa arrin marka boqolkiiba boqol qofkii u caddaynaysa inuu markaa muslim yahay waxyaabaha qofka lagu markhaati kaci karaa xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ee muslim ahaa inna bayna arrajuli وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وحا أدحايا قفك بني آدم كأه إيا إنو قال نما أوقلو
inuu shirki uu ku dhaco salaad inuu ka tago kaliya ma u baahan tahay inaad ogaatid teedka ku dhaxeeya adiga iyo shirkiga ma u baahan tahay inaad ogaatid xuduuda idin dhaxaysa ama soodinta idin dhaxaysa adiga iyo shirkiga waxa idin dhaxeeya kaliya salaad aad ka tagtid kullama qofka uu salaada uu dayaco wuxuu qofkaas halis u yahay si sahlan inuu marka u dhaafo soodintii marka kala teedaysa ama kala celinaysa isaga iyo kufrigi si sahlan buu marka kufriga marka ku dhaxgeliya wal iyad billah ولذلك حديث رسولك عليه الصلاة والسلام بريدة بن حصيب وحوها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر إنك إيادتك قال هذا وحا إنك دحيو بلنو صلاة كلية إلا أوغو هدي صلاة قفكي صلاة كتغانا وقالوا برسولك عليه الصلاة والسلام ويري كلمة قال ومعنى هذا سيدة أدو ديني سيد سادرتد معناها مركا لتلمام كفريا ماشا كو قران بو ليهي شيخ بن عثيمين وكفريا قفك دين تبا كساري ودبدا اساري وانا مركا كسو علينين